السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكنات إلهي سكو كان سوعلي أيام هذا السكنات أدبا إذي سلام يا دمانتين. الحمد لله رب العالمين. إلهي نبض بنقصو كعي إذن كان إن شاء الله نبض بلا نقصو ذا كعي أدبا إذي سلام يا إن شاء الله دمانتين أصحابتي يقحرن إن شاء الله إن شاء الله وحاد قريتين يا أبو حان يقعد سنين أذكري قادين إن شاء الله hadduu ilaahay idhaad subscribe-kaada siisiin una sheer garaysiin walaalihiina kale si uga faa'iidaystaan barnaamijkii shalay toole barnaamij cusub weeyaan insha allah waan soo wadaa isagu noocyo kale ana ha laga faa'iidaysto bahalkii sida u ekaa kuraadka ahaa amba kubadaha yaryar ahaa ee sida liin dhanaanta u ekaa faa'iido badan ayuu leeyahay wuxuuna u fiican yahay hoostoo dhan ayuu faa'iido u leeyahay insha allah isagoo siday oon biyo ka dhigan insha allah waan samayn doonaa marka ha laga faa'iidaysto waa aad buu ugu wanaagsan yahay in hoosta lagu isticmaalo marka insha allah qofka ay dhiiga ku kasoo iman waayo qofka ay dhibaato hoosta ka haysato dhan insha allah aad buu ugu wanaagsan yahay marka insha allah maanta maxaa idiin wadaa insha allah marka waxaan rabaa inaan walaalihiina kale u sheer garaysiin insha allah sida uga faa'iidaystaan midda kalete layga xooga ii saara insha allah waa idiga codsanayaa insha allah layga si aad ii siisiin insha allah iyo komad qurux badan aad baa idinkana idiin soo dhaweynaya insha allah aad baad u mahadsantihiin si aad iigu daawanaysin cajaladaha aad baad idigu mahadsantihiin dhammaantiin maanta waxaa idiin wadaa insha allah waxaan walaalihiina waxa weeyaan waxa aan doonayaa inaan la hadlo in dadka isqaba amba soojeenka zawjada amba zawjka ninkii naagta laakiin khaasatan ragga insha allah in loo sameeyo oo waxa weeyaan lagu caawiyo raggeena waxa weeyaan dumarkeena qaarkood waxa u yaqaanaan ayaan barnaamijkan mar daawaday ragga Soomaalidu inay awood lahayn ay dumarka qaarkood u haystaan laakiin aan aaminsani laakiin dumar badan waxa ay aaminsan yihiin ragga Soomaalidu inay awood lahayn ragga ma aragtay Jamaica amba madowga amba ragga kale inay awood leeyihiin marka insha allah waxa aan rabaa maanta insha allah waxyaalo waxa weeyaan in islaamkeena nafaraya inaga nafteenu faa'iido u leh oo caafimaad ahaan u wanaagsan jirka ugu wanaagsan oo qofka lafihiisa dhisaya khaasatan ragga lafooga dhisayaan awood buu siinayaa quwad ayuu siinayaa in jirkiisa marka insha allah ka faa'iidaystaan raggeena Soomaaliyeed insha allah mar hore waan ka soo hadlay ragga Soomaalidu waxa weeyaan awood ayuu siinayaa haddii uu qosol hindiga cabo sida hableena Soomaalida ay amaanaya ragga madmadow insha allah Soomaalidana way amaani doonaan insha allah qosol hindigu aad buu faa'iido u leh haddii aanan xanuuno kale ku hayn in dhinaca raganimada aad buu ugu fiican yahay qosol hindigu inuu qofku cabo insha allah maantana insha allah waxaa idiin wadaa looska waxa weeyaan ragga awood ayuu siinayaa insha allah marka insha allah dumar oo faa'iideeya idinkana insha allah adduunyo aakhiraba waxa weeyaan ilaahay inuu niga dhigo xuracaynta aakhiro raggiina insha allah dhammaanteenba inuu xuracaynta aakhiro ilaahay inooga wada dhigo insha allah adduunyo aakhirana aad ka wada raaxaysatiin insha allah idinkuna kula dadaala raggiina insha allah in aad intaa u samaysiin waxa weeyaan faa'iido badan awood ay yeelanayaan raggeenu insha allah aad baana insha allah inagu soo dhaweynayaa idinkuna inaad dumar ku caawisiin insha allah raggiina halkan waxaa yaala heel waxaa yaala halkan heelkii iyo qorofal baa ii yaala iyo koob caana ah iyo waxaa yaala loos faa'iido badan ayay leeyihiin marka insha allah awood ayay siinayaan ragga insha allah waqtiyada maad aragtay shaqo jirto amba hameenkii ayuu cabiyaa ninku amba gabadhu iska cabi karta laakiin ragga ayuu awood siinayaa marka insha allah raggeena awoodda ka dhisna weeyaan insha allah haddii ilaahay idhaahdo waxaad cabisaa hurdada horteed ayaad cabisaa isagoo ood ka dhiganaysid sharaab ahaan amba cabitaan aad ka dhiganaysid ayaad cabisaa hurdada horteed waxa weeyaan waqtiyada ay shaqo jirto amba waxaa ay galmadu jirto insha allah waxa qofkaasi ninkaas wuxuu noqonayaa sida faraska oo kale waxa weeyaan awood ayuu siinayaa inta hadduu isku darsado uu cabo marka insha allah kulli waa la fahmayaa ma sii dhaxgalayo laakiin insha allah awooddan kusoo gabagabeynayaa sida faraska oo kale ayuu ka dhigayaa ragga marka insha allah dumaroo idinkuna u faa'iideeya raggiina caawiya insha allah
idinkana faa'iida idiin tahay insha allah. Caawiya raggiina. Marka insha allah waxaa loo sameynayaa ragga insha allah hameenkii ayaa loo sameynayaa inay cabbaan si sharaab ahaan hameen walba inay iska cabbaanba aada u wanaagsan oo waxa weeyaan faa'iido badan ayuu leeyahay. Marka waxaan isku soo ridqaynaa qorfaha iyo waxa weeyaan heelka ayaan qorofalka iyo heelkaan isku soo ridqaynaa insha allah iyo looska ayaan makiinadan kusoo ridqayaa insha allah. marka waan isku soo noqonaynaa aad insha allah. asxaabi waa kaa hameen walba in yar haddii loo ridqo wax badan ma samaysan anigu 10 hal oo loosa iyo 7 xabadood oo qorfiyo yaryaraay. heelkana waaba 3 hal weeyaan amba 4 hal inay tahay magaalada wax yar. marka hameen walba koob caana ah intaan haddii lagu samaysto insha allah haddii talaagada loo gelinayo qofku iska cabi karana dee qofka isaga ayaa khusaysa. laakiin aniga koob caana ayaan sameynayaa insha allah. ha laga faa'iidaysto. waan isku ridqayaa insha allah. waa kaasi insha allah makiinadaan soo marinaya. asxaabi wataasi makiinadaasaan insha allah ku ridqaynaa sidaa ula socda. kolley wakaa waan soo ridqay maasha allah. udgoon weeyaan maasha allah. heelku aada buu udgoon yahay maasha allah. caafimaad ahaana wuu fiican yahay. loosku waxaa kaloo fiican wadnaha wuu fiican yahay. awood buu jirkaaga siinayaa. sonkorta wuu daadejinayaa. waxa weeyaan subaga jirka ku jira uu ka baabiyaa. looska ha la ogaado. looska la iska cuno sidiisa ha la iskaga cuno maasha allah. faa'iido badan ayuu leeyahay. marka waxaan kale oon ku baraarujin ku sameynayaa amba ku boorinayaa dumarka markay caruusadaha yihiin raggooga ha la ogaadaan heelkaa yar iyo qorfaha iyo looska aad buu faa'iido u leeyahay. caafimaad ahaana uu wanaagsan yahay insha allah. maskaxda uu wanaagsan yahay. maskaxda uu kalin gareeyaa maasha allah. waxa weeyaan xanuunaha maskaxda ku dhacayo dhan xasuusta uu fiican loosku. marka insha allah ha laga warhayo loosku ha la cuno aad buu faa'iido u leeyahay. maca saqcadda mar hore waan ka hadlay aad aanu isticmaalna insha allah. ajnabiga kaloo dhan aad buu isticmaalaa saqcadda laakiin naguma isticmaalno. waa la cunaa. loosku u fiican yahay. dadka qaarkood jeebabka iskaga sitaan way iska wataan bacahay ku wataan. meel kastood adduunyada tagtid waxaad arkaysaa carabta ajnabiga kaloo dhan iyaga oo bacaha iskaga sita. marka ragga khaasatan ragga awood badan buu siinayaa. marka inay isku ogaadaan ayaa fiican. ay ka faa'iidaystaan fursadaha qaaliga ilaahay subxaana watacaala nicmadaha uu ina siiyay ku jiraan. marka asxaabay wataasi wakaas looskii aan soo ridqay iyo qorfihii aad maasha allah udgoonka waad yaabaysaa. caanahaad ku dhex darsan kartaa haddaad doontid makiinadaad marsanaysaa insha allah. ka asxaabay maasha allah waan ridqay. marka insha allah haddaad doontid koob caanaad ku walaaqanayso caano yaroo qabo maasha allah. hameen walba waad iska cabaysaa insha allah. waa haddee hameenadu caada khaasatan shaqa jirto oo kale insha allah faa'iido badan ayay raga u leeyihiin insha allah. haddii kale makiinada ayaad marinaysaa insha allah. marka asxaabay waxaa idigu boorinaya insha allah makiinadaan soo marinaya gabdhaha caruusadaha inay ka faa'iidaystaan. waa fursad qaaliya in ay dhegeystaan cajradaha. ku caawiya walaalihiina kalena inaad u sheergaraysiin insha allah si uga faa'iidaystaan. ee ragooguna iyagana insha allah ee u raaxaystaan insha allah. adduunyadu waa 4 cisho ha laga raaxaysto insha allah. inkastoo adduunyadu waxa weeyaan raaxo lahayn laakiin 4 cisho la joogo insha allah. waxaan ilaahay diga rajeynayaa aakhiriya adduunyaba waxa weeyaan kuwa waxa isku noqda xuracaynta insha allah. aad baana idiin salaamaya dhammaantiin. waan soo caanaan kusoo ridqaya ha lagu soo dhawaado insha allah. asxaabi wakaa malqaacad waxaan ku darsanaynaa malab saafiya maasha allah. aad buu wanaagsan yahay malabka saafigiina insha allah. marka aan isku soo wada walaaqnay wakaasi malqaacadda malabkan waan ku darsanaynaa saafiga. marka asxaabay ha laga faa'iidaysto insha allah. wakaasi malqaacad malabaan ku daray waad arkayseen dhammaan insha allah. dee waxaan ku uri ha loo faa'iideeyo zoojkaaga amba ninkaaga ha loo faa'iideeyo insha allah. waxaa idiga barayaa amba idiin weydiinaya ilaahay subxaana watacaala inay nii noqdaan xuracaynta aakhira insha allah. kuwa waxa weeyaan isku farxa aakhiradana ilaahay subxaana watacaala isku intuso ayaa ilaahay idiin weydiinaya dhammaantiin. waana idin salaamayaa insha allah. ha lagu caawiyo ragga walaalaheena insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.